نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي وحكسوغان إن ويري سدح روح جنة قلي مايان وليقود كوغوه الرأي النبي وحور صلى الله عليه وسلم الديوث وانينك الديوث كاليدا كاللبادنا وحوي وهني هوين إذا ضمرك الرقا اسكو شبه ذا كالصدحان والروح خمرة دائمة صدح ذاب النبي وحور صلى الله عليه وسلم وليقود جنة قلي مايان كوغوه الرأي الديوث نبي فسري وحلوله تشيدو رواية كلو حديث كرواية كيسا كم إذا وحو يلي يوثكو وانينك إهل كيسا دحضوض حمانتا كقرة أو أدعية إهل كاغا حاس كاغا قبرهاغا داداد مسؤولك كتاهي حمانتا أي سمينيان فحشيغا أي سمينيان قاوانان تودا دين لآن تودا أخلاق حمضوضة إن عندها كفير ستود رالي كأهات أما الرالي بها كأهانين أضغاء مستاي وديوث نمو ديوث نتشنى مقالوا صوت محيطاي لأن إيمانك وحا كمده مقتضيات كيسية وحياله كيرا وحا كمده روح إيمانك له إنو قيروضه إنو قير ليه إنو فعل الله حمانته إنو كفعل الله ساس دراديد بالنبي صلى الله عليه وسلم منكر كإيا حمانته قود أهم با روحه هدو كحنون صوايو كدقن وايو كحجيمون وايو نبي صلى الله عليه وسلم وقلبي سور رالي كن نقضى أما هبيرته أركا وحسك عادية مركز إيمان بمجربا وذلك أضعف الإيمان وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان إيمانكم مركا وحكينيا إنه روح حمانتك قيرون هدي قوريكيسا إيا ريركيسي عرورتيسي حاسسكيسا أي قشنا ويكدر أنت نبينا صلوات ربي والسلام عليه أيا وحو يدي قيردا إيا فعل لدى حمانتا إنه روحه كفعل تمو وحي قارنا إلهي واتشعليه قارنا إلهي وانعبيه alla wuxuu jecel yahay markay tuhma soo baxdo oo ay timaado waxyaalo muuqda ama xoog badan oo mala xoog badani soo baxo inay xumaani jirto oo faaxisha jirto oo khaladaad iyo akhlaaq xumo jirto inuu arka iska badaay markaas oo kale ninku inuu qiiroodo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ilaahay waa jecel yahay midda ilaahay necab yahayna waxa weeye iyadoon dhibiba jirinba dadkiina hagaagsan yihiin xaaskii hagaagsan tahay caruurtii iyo gabdhihii hagaagsan yihiin dadkii ay nabad qabaan inuu ninku iska masayro oo tuhma iska gasho oo uu waswaas qaado oo cudur ku dhaco oo balaayo oo gurigii waa la galay oo yaa isoo daba maray taa ilaahay waa nacib yahay tabaaraka wa tacaala laana meesha wax ku jira ma baahaba asalku waxa weeye dadka muslimka calaaqadoodu waxay ku salaysan tahay is-aaminid bay ku salaysan tahay labada ruux ee wada joogana asal waxa weeye in is-aaminsan yihiin saas daraadeed hadayna riiba iyo wax tuhmo keena imaanin ilaahay qiirada noocaas oo kala ama jecla laakiin wuxuu jecel yahay markay wax soo baxaan inuu ninku qiiroodo oo reerkiisa iyo caruurtiisa iyo muxuu gabdhihiisa ilaashado waxa sugan nabigeena ka soo xaqsugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi hadiista ku sugan نلي هذا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من قيمة بدنها يوجاسها أيها وحو يري هدان خير كيجي حاس كيجي أكتر نين أجو إمات ولا إن سيف كل فنبول ولبا لنا هذا كل فن ما يأف كذا كل فنبول وركب النبي قال صلى الله عليه وسلم وعلى الرسول كلا ينكي سعدها وحوليه haddaan gurigayga reerkayga nin ugu imaado seef baan kaga takhalusi markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ma waxaad la yaabatihiin qayrada iyo masayrka iyo ficilada sacad ma la yaabteen ilaahay baan ku dhaartay ana ka qayro badan anigana ilaahay baa iga qayro badan sidaas daraadeed ilaahay inuu qiiro leeyahay daraadeed ayuu wuxuu u xarimay dambiyada foosha xun oo dhan buu u xarimay zinada liwaadka qashinka akhlaaq xumada wuxuu u xarimay laana ilaahay qayru leeyahay tabaaraka wa tacaala qayradiisa darteed buu u xarimay
marka anigana ilaahay baa iga qayro badan aniguna sacad baan ka qayro badnahay sacad qiiradiisana wax la yaaba ma aha ninku inuu reerkiisa iyo ehelkiisa u qiiroodo buu nabigu yiri salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraadeed ruux haduusan qiiro lahayn oo xumaanta uusan ka qiiroonin gurigiisa iyo reerkiisa iyo gabdhihiisa iyo xaaskiisa macnaheedu waxa waa dayuuthna janno geli maayo qodobka koobaad waa ka sababta rabbigeen tabaaraka wa tacaala mas'uuliyad buu ninka saaray reerkiisa mas'uuliyad baa ka saaran sida xadiidka nabiga fi saxiixayn xadiidka Abdullah ibn Umar kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyatihi ayadu quraanka rabbina ugu sheegay ya ayyuhalladhina aamanu mu'miniintiyo qu anfusakum wa ahlikum nara naftiina iyo ehelkiina xaaskaagi caruurtaada naarka ilaaliya waxa weeye mas'uuliyadda qaado oo xifdiya xumaanta ka ilaaliya naar u soo noqonaysa waajibaadka diinta dayacayaan ka ilaaliyo naar ugu sabab noqonaya waxnahaas laga wadaa naar ka ilaaliya ruuxa labaad ee nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam inuu san janno galaynin ar-rajula min an-nisaa wa haweenayda ragga isu ekaysiis ninka iska dhigta طبعا raguna waa la mid wa xadiis kaleeta nabigu sallallahu alayhi wasallam la'nada ilaahay ha ku dhacdo ama ilaahay waa lacnado naxariistiisa waa ka fogay ragga dumarka isu ekaysiya iyo dumarka ragga isu ekaysiya labada jinsi oo rag iyo dumarka mid walba ilaahay baa abuuray hadduu ilaahay abuurayna mid walba abuurkiisa ilaahay waa qurxiyo waa wanaajiyay dabeecad khaas mid walba siiyay walaysa dhakaru kal untha dhadiga iyo labku isku mid maaha الله أبوري با تبارك وتعالى جيركودنا كلا دوي شقada jirkaasi qabanayana isaga kala duway jirka dumarka waxa ilaahay u sameeyay shaqo alla ugu talagalay oo uu qaban karo qaab uu noolaan karo ilaahay ugu talagalay baa jira jirka ragana qaab kale loo sameeyay oo ka duwan maxay yeelay hawsha uu qabanayo ku bees garaysan oo ku salaysan haday gaala inkirtay oo labada jinsi kala duwanaantooda ay inkireen waxay ilaa hadda inkiri la yihiin wiilka iyo gabadhu markay soo dhashaan oo barbaarayaanba waa kala baxayaan ihtimaamaadkoodu waa kala baxaya caadifadoodu waa kala baxaysa shaqaday qabanayaan waa kala baxaysa abuurkoodu iyo physically siday ku soo baxayaan waa kala baxaya walaysa dhakaru kal untha allihi abuurtay ba saa u kala duway kana sida ka dhigay labadooduna sidooday ku quruxsan الله تبارك وتعالى منا سيدر أقرحية منا سيدر أقرحية كيف فولحنا مركب فول حمديسا كسو عرّيو ككلا اسكو قرحيني يا ما ميد فولحن باكيرا ما دمر با فولحن او دمر نمدا انتي كعرّان رادين يرق دقنك مس رقا فولحما لغو ابوري فولحمدا كعرّيو دمر اسكا دغاي لبدبا الهي وا قرحيه تبارك وتعالى لماذا مركب جنسي كلا ان نقطه ادو رادينيس سعودكاغا قاب دقنكاغا لبسكاغا تصرفات كذا خصائص الجنسي قال ليه هي كجد خصائص الجنسي قال ليه هجلين دمر بات قاب كدمر لو قلت لك قال ودقن اخلاق دودي دقن كودي قادو رغبات هي جيد كامر خصائص لبدا الجنسي الى هي كلا دوي حدي ليسو اكيسيو رغ دمر حقودا اذاننا ولعندين حدي دمركو حق الرجل سو آذان ودقن كودي خصائص تودي قاتان ولعنديهن ساسو النبي جنو تلمامي صلوات ربي وسلام عليه معايير لبدا جنسي جريتان كودا iyo mid walba inuu jira xikmad aw waxa ku salaysan in aadamaha tarankiisu sii jiro hadii labadooda mid ka baxo khadkiisa aadamaha tarankiisi waa baaba ayaa mafsado weyn baan caalamka ku soo kordhaysa waana mid maanta reer galbeedku horseedka ay u yihiin fasaad weyn iyo fitna weyn iyo aafo weyn ba aadamaha ku soo wajahan qaab dhaqanka reer galbeedku adduunka ay u hogaaminayaan sababta wax way jinsigii dumarka ayay dumarnimadii ka saarayaan markaas waxay ka dhigaan doonaan inay rag ka dhigaan halkaas wax badan baa ku baaba'ay fasaad badan baana aadamaha soo wajahay taasi wax way nabigeenu miduu tilmaamay oo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi haweeneyda ragga isu ekaysiinaysa iyaduna janno gali mayso midka saddexaad ee nabigu sallallahu alayhi wasallam uu sheegay inuu janno galaynin waa mudminul khamri waa ruuxa khamrada cabitaankeeda iyo isticmaalkeeda daa'ima hadduu cabay oo ka toobad keenay
mar cabay oo ka soo noqday mar kala cabay oo ilaahay u soo laabtay tawbad uu ku dhintay maaha laakiin wuu cabay siduu u cabay oo u isticmaalay buu ku geeriyooday janno gali maayo buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi maxaa yeelay khamrada iyo dadkeedaba ilaahay waa lacnaday jibriil baa nabigeena u yimi sallallahu alayhi wasallam jibriil alayhi salaam malakul jibriil baa nabigeena u yimi sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu yiri muhammadow allah tabaaraka wa taala khamrada waa lacnaday mid ka hagaajinayana waa lacnaday oo sameeynaya ka loo sameeynaya dalbadayna ilaahay waa lacnaday mid ka cabayana ilaahay waa lacnaday mid ka xambaarsan ee xamaaliga ee tunka ku sida ama gaariga ku sidana ilaahay waa lacnaday midka uu u sidee uu u sii wado isagana ilaahay waa lacnaday midka iibiyay ee gadaya ka ganacsanaya alla waa lacnaday midka ka iibsanaya ee qaadanaya alla waa lacnaday midka waraabinaya kabriyeriga waiterka shaqaynaya khamrada u shushubahaya waraabinayana ilaahay waa lacnaday ka loo shubayee dalbadayna ilaahay waa lacnaday midka lacagteeda cunayna ilaahay waa lacnaday wax kastoo khamrada calaa qalala ilaahay waa lacnaday khamro maxaa la yidhaahdaa shariicadu khamro waxay u taqaanaa wax kastoo maskaxda bini aadamka isbeddel ku sameeya maanka aadamaha wixii tagsiiya ama si tartiiba ha u tagsiiyo ama hal mar ha tagsiiyo ama ha wada tagsiiyo ama qaar ka mid ha tagsiiyo khamray shariicadu u taqaanaa alkhamru maa khamara alcaqla waay khamro waxaa la yidhahdaa wixii caqliga daboola aadamaha caqligiisa dib u geysiya dareenkiisa iyo fahamkiisa iyo maankiisa iyo dhimirkiisa dib u geystaa la yidhahdaa ama ha noqdo wax la cuno la ruugo ama ha noqdo wax la cabo ama ha noqdo wax xididada laga qaato la isku duro wax noocu dooni ha ahaado sidoo dooni ha u yaalo sidoo dooni ha loo isticmaalo marba hadduu maskaxda iyo maanka wax yeelayo waa khamro nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam shayga haddaad badsato maankaaga doorinayay intiisa yarna waa xaraam in yar haddaad ka kabato ama wax yar ka isticmaasho maankaaga doorin maayo laakiin haddaad kamiye badan ka isticmaasho maankaaga wuu doorinayaa waa khamra buu nabi maxamed yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi taa macnaheedu wax weeyaan adiga ha fiirini ma la cabaa mise lama cabo khamra ma u yaqaana dadku ma ku magacaabaan mise kuma magacaabaan laakiin waxaad fiirisaa saamaynta uu ku leeyahay bini aadanka maankiisa marba hadduu saamaynayo khalaas khamro weeyaan sidaas daraaddeed baa waxaa saxa in la yidhaahdo qaadku waa khamro laanna aadamaha inta wax garanaysa gaal iyo muslimba baaritaanka lagu sameeyey wuxuu sugayaa inay ku jirto maadaamaanka bini aadamka doorisa mar hadduu maanka bini aadamka doorinayo waa khamro xugum khamar buu khamru leeyahay ka ganacsanaya lacnadan ka cunaya lacnadan midka loo xambaarsan yahay diyaaradaha ku qaadaya lacnadan midka xambaaraya lacnadan ka loo sii wadaa lacnadan ka gadanaya lacnadan midka iibinaya lacnadan ka lacagta ka soo baxday cunaya lacnadan laana maxay kaga duwan tahay xashiishada maandooriyaha qaadka khamrada kulli isku meel waay ninkii kala qaadana daliil baa looga baahan yahay laana shariicadu magacyada lama tacaamusho qaad baa la yiraahdaa waa caleen lama tacaamusho laakiin waxay la tacaamushaa xukunka saartaa saamayntu leeyahay waa noocee muxuu saamayn leeyahay adib ila dalika inta ka badaranay maanka ka darano xoolihii buu gubay xoolo uma hadhin muslimiintii walilaasaf dadka u badan oo qaadka cunaya muslimiinta waa hantidoodii ay wax ku dhisan lahaayeen ku noolaan lahaayeen ummada kala gurtay iyaguna caleen maandooriye baa laga buuxiyay oo guryahoodii iyo dalalkoodii iyo deegaamadooda looga buuxiyay xoolihii baaba'e aqligii baaba hanti ma jirto diini ma jirto nafi ma jirto inta daroogad iyo qaadka la isticmaalayo waa wax bini aadamka burburinayo dagaaladii aafada kicinaya oo nin daroogaysa waxbuu dili oo gaarigu wada uu rogi oo dad buu baabi'ini oo dhiigi daaday dhiig ma fayooba oo diini ma fayooba oo aqli ma fayooba oo nasli iyo taran ma fayooba ragii qaad cunay dumar ma hayaan taran ma hayaan qoysaskii baaba'e intaasoo fitan iyo fasaad buu la dheeriyaa khamrada
بعد ذلك إن لي هذا وقوت الأولياء أي قوت وأي أولياء الشيطان هؤلاء يوقودية صح وقوت الأولياء لكن أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ما أولياء الشيطان قوت كودي واحد وقوت شيطان واحد سداس درادات روح الدائمة نوع يوحي كوي ما دو أصغو استعمال يكوغيري يودون كتوبة كينين جنة إلهي وكحرمي نار لواقليها صلوا